gaari badan ku gubtay goobta uu qarax ka dhacay afaafka hore ee hotelka lagu magacaabo Hilaac UK oo uu ku garab dhagan yahay hotelka weyn ee Maka Al-Mukarrama sida u jeedaan ba hotelka Hilaac UK aad ayuu u burbursan yahay sidoo kale waxa burbur kala soo gaaray hotelka Maka Al-Mukarrama goobtan aad u jeedaan ee burbursan waa goobo ganacsi xilligu qarax dhacayna waxay ahaayeen goobo shaqeynaya oo dad fara badan ay markaa wada joogeen goobta uu qarax ka dhacay oo ah wadada Maka Al-Mukarramana markaas waxay ahayd wada aad u saxmad badan oo ay dad fara badan markaa joogeen sidoo kale wadadan waxay ahayd xilligu qarax dhacay wado aad cariiri badan oo baabuurta aad ay markaa u buux dhaafiyeen oo waxa ay laayeen meel ku kala socdaan marka dhimashada iyo dhaawaca lama qiyaasi karo inta ay marka indhaheenu arkeen waxay ahaayeen ilaa 4 ilaa 5 qof oo dhaawaca halka dhimashadu ay ahaayeen 2 qof meeshan gubanaysa waxa lagu magacaabo hotelka Kuwait Palace oo marka ka soo horjeeda hotelka Maka Al-Mukarrama iyo hotelkan kale ee Hilaac UK lagu magacaabo gabi ahaan hotelkan aad ayuu marka u gubanaya wali laamaha amaanku waxa ay marka u diidan yihiin bahda saxaafadii dadka kale inay galaan oo waxa laga shakisan yahay gaari kale in uu meesha marka ka qarxo waliba laamaha amaanku waxa ay tilmaamayaan gaariga oo waxay leeyihiin hal iska ilaaliyo gaarigan ayaa ah mid marka waxyaabaha qarxa uu marka saaran yahay wixii faahfaahin oo intaan dheeri ah waa idin la soo socodsiin doonaa waa ay adag tahay in aad halkan ogaato khasaaraha rasmiga ah ee dhashay